xaaladda caafimaad ee xaaska haddii hadda nolosha ay soo hagaagayso. xaaska haddii hadda nolosha ama marwadiisa ayaa in muddo ah ku xanuunsanaysay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. xaaska fanaanada farxiyo ayaa soo wajahday caafimaad darro kadib markii loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. xanuun ku soo booday waxaana jirtay in xaaladeeda laga soo deeriyay maalmihii ugu horreysay, taasoo la sheegay in ay kooma gashay islamarkaana ay halis gashay. waxaana murugada ugu weyn ay soo wajahday fanaanka maadaama ay ahayd boqoradiisii uu indhaha ku nuulsan jiray islamarkaana oo ay ahayd jacaylkiisa rasmiga ah. fanaanka ayaa marka ka dambaysa soo dhigaya muuqaalo ama qoraallo qiiro leh, taasoo ku cabirayo dareenka uu qabo iyo jacaylka uu qabo farxiyo, taasoo sheegay in uu aad uga murugaysan yahay xaaladeeda caafimaad. waxaana uu bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in ay u soo duceeyaan farxiyo maadaama ay xanuun soo wajahay. waxaana uu aad ugu mahadceliyay uuna u soo dhaweeyay dhammaan dadkii kusoo booqday isbitaalka ay taalay marwadiisa, taasoo sheegay inuusan marnaba iloobin doonin qofkii kusoo booqday isbitaalkaas ama shakhsigii u duceeyay oo ka qayb qaatay sidii xaaska hadda nolosha ee caafimaad Ilaahay u siin lahaa. waxaana uu sheegay in dhammaan dadka ugu soo duceeyay baraha bulshada uu aad uga guddoomay ducadooda, islamarkaana uu sheegay inuusan marnaba iloobi doonin qofkii xushmad u muujiyay asaga. dayaxdal nuurshe ayaa soo dhigay bartiisa Facebook qoraal uu ku cabirayo in xaaskiisa uu aad u jecel yahay. wuxuuna yiri, xaaskaygii Ilaahay ha ku siiyo cimri dheer, cibaado suuban iyo caafimaad wanaagsan. noloshaada waxay nolol u tahay dad badan oo aniga kow ka ah. maanta hadday ku waayana lagu dambaabi karin. waxaa suuragalka ah dhici kara. waan ku jeclahay, waxaana kaa jeclahay inta Ilaahay dunidiisaan keenay. waxaa tahay ubax qurux badan oo indhahaygu ku doogsadaan. waxaa tahay farxad nuur wehel ma qiyaasi buu yiri booska aad agtayda ka taagan tahay. waxaad ii tahay saaxiib, walaal, xaaska ugu wanaagsan dunida. Ilaahay ha kuu siyaadiyo caafimaadkaaga, inta kaa dhimanna Ilaahay ha kuu dhammaystiro. waxaad haysataa ruux Ilaahay ka sukow maanta aad adigu leedahay. aaminsanna keliya inaad xaas keliya u ahayn, ee aaminsan inaad u tahay duni dhan, farxad dhan iyo wax kastoo dunida yaala. hadalkaasi ayuu kusoo qoray bartiisa Facebook oo ku cabiraya jacaylka iyo qiirada jacaylka uu dareensiinayo xaaskiisa oo xanuun soo wajahday.